cashirkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa macalin noocee ayaad u baahan tahay si aad u baratid wadida gaariga si fudud. waa salaamantiin dhammaan asxaabta meel walba joogtiin. waa anigoo ah Xusni isku day doona inaan idin ka caawiyo dhanka wadista gaariga iyo akhrinta ama shuruucaha teoriga. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe noo saar. haddii aad tahay kuwii hore iyo kuwa cusub ha moogaanina laaga iyo shaarta iyo commentiga. waa mahadsantihiin. cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay macalin noocee ayaad u baahan tahay si aad u baratid wadida gaariga si fudud. haddaba waxaan wada ognahay qof walba oo wax baranayo inuu u baahan yahay macalin ama haga tusiyo qaabka loo sameeyo oo u leh aqoon waxa uu ku barayo. macnaha muhiim ma ahan macalinka inuu macalin iska noqdo. waxaa muhiim ah macalinka inuu yahay macalin qaabaysan, jihaysan, qofka wax bari karo, ogni qaabka wax u barayo, ogni waxyaabaha qofkan inuu barto looga baahan yahay si oo natiijo u keeno ama imtixaanka oo guul kaga keeno. tusaale haddaan soo qaato, hadduu macalinkaaga ku imaado maanta waxaan qaadanaynaa cashir oo ku dhaho oo ku soo wado. tusaale ahaan waxaan ka hadlayaa wadida ama cashirka oo wadida. hadduu ku soo wado cashirka maanta oo ku soo wado centerka ku keeno kaa celiyo, macnaha qorshe ma jira. macnaha wuxuu ku barayo waa inaad wax soo saar fiican yeelatid, way adkaanaysaa. marka maxay u adkaynaysaa? macnaha inta aadan soo dhaqaaqin oo ama cashirka uusan ku siinin marka ugu horeeya aa kulantiin waa in oo qorshe jira. oo qorshahaas macnaheeda waxaan ka wadaa waxa aan sameynayno cashirkeena maanta muxuu ku saabsan yahay, maxaan kaga hadalnaa, maxaan ku soo baranaynaa. okay, macnaha haddii ay tahay soo bax cashir aan ku siinaa, adiga qarashaa kugu socdo ogaaw. macnaha asin dabcan waxaa laga yaabaa inuu qarashkaas fiirsanayo aysan baahi kala jirin. laakiin waxaa ka muhiimsan aniga ahaan aan aaminsanahay lacagta ama qarashka la fiirinayo ama danaha la fiirinayo waxaa ka muhiimsan qofka inaad u bartid si wanaagsan waxa uu u baahan yahay oo u baahi qabo. tusaale haddaan ka soo qaado, qofka markuu macalinka u imaado uu koowaad oo cashirka siinayo waa inuu ku xisaabtamaa cashirkan ama oo wada hadal la sameeya ardayga macalinka ama labadood wada hadal ay sameeyaan. okay, cashir ayaan qaadanaynaa muddo saacad kulli dabcan. haddaba haddii aad ka qaadanayso iskuul waa 40 daqiiqo oo lacag dhibal oo bixinaysid. haddii qof adiga macalin ah haysatid oo ku barayna kulli waa iska saacad oo ku siinaa. waa haddii qarash bixinayso waa qarash ama qarash la'aan ku noqdo. muhiimadda waxaan ka hadlaynaa cashirka oo ku siinaa inta aadan marka hore aadan dhaqaaqin waa in aad ka wada hadashiin cashirkeena maanta muxuu ku saabsan yahay, maxaan kaga hadlaynaa, maxaan ku soo baranaynaa. maadaama ay saacad ay tahay, tusaale ahaan saacadan ka soo qaadaya saacad ay tahay, maxaan ku baranaynaa, maxaan ku soo baranaynaa cashirkeen. inaad ka wada hadashiin, isweydiisiin oo waxa waaye meel isla dhigtiin cashirka waxa ku soo baranaysiin. aniga ahaan waxa aan sameyn lahay ayaan kuu sheegaa. okay, wax aan sameeyaa ama aniga qofka aan wax baro ama dadka aan wax soo baray qaab ahaanta aan u isticmaali jiray ama u bari jiray waxa ay tahay, marka ugu horeeyo ardayga aniga ayaa jihey jiray mase asiga waxaa weydii jiray baahida oo qabo oo u baahan yahay in laga xaqabtiro oo u baahan yahay ayaan weydii jiray. hadduusan waxba ii sheeganin waxaa isku dayi jiray in aan sameeyo, maadaama ay saacad tahay aan isku dayo in aan wax kaga faa'iideeyo 4 shay. 4 shay maxaan ka wadaa marka? macnaha markii baabuurka la wadaayo waa qayb ay u baahan tahay. tusaale ahaan qofka waa inuu bartaa qaabka gadaal loogu wadaayo, qaabka roondeelka loo isticmaalo, qaabka highwayga loo fuulo, qaabka looga dego, qaabka centerka loo aado, qaabka looga imaado. wuxuu u baahan yahay mafaanta dalcad sida looga dhaqaajiyo, sida loo sameeyo, sida samaan faraha loo istaago, qaabka loo dhaqaajiyo, qaabka loo sameeyo
jiheynta ama midig hadda u leexinaysid ama bidix u leexinaysid waa in aad istoosisaa. midig hadda u leexinaysid dhanka midig isku toosisaa. hadda bidix u leexinaysid dabcan waxaa la balaaneerin oo qorshe qofku waa inuu qorshe ku socdaa oo ogyahay xaalad walbo. qofka waa inuu isticmaalaa haadadka, micnaha inuu haadka dhexe, waa inuu marshooyinka qaabka uu isticmaali lahay, micnaha waa in uu cashirka aad qaadanaysid ee leedahay focus ama jiho inuu u socdo. micnaha tusaale ahaan haddii ay saacad tahay waxaa u qaybi kartaa min 15 daqiiqo oo ah 15 daqiiqo micnaha waxay noqonaysaa 4 qaybood. maanta waxaa dhihi kartaa waxaan ku baranaynaa ama aad ka codsan kartaa macalinkaaga ama macalinkaaga oo ku dhihi karaa waxaan ku baranaynaa 4 waxyaabood. 4 waxyaabood maxay yihiin? 15 daqiiqo hore waxaan ku baranaynaa qaabka isgoosiyada loo gooyo, hogaragalka sida loogu istaago ayaan xoog u saari doonaa 15 daqiiqo ugu horeyso. 15 daqiiqo ku xig waxaan sameynaynaa qaabka loo istaago samaafarayaasha, loo bartiirayo qaabka meesha aad leedahay aad ka istaagaysid. ka saddexaad waxaan ka dhigaynaa 15 daqiiqo kale. saddexaad waxaan ka dhigaynaa qaabka loo isticmaalo rondeelada. horaan u sii socono qaabka kale oo ku xigo waxaan ka dhigi karnaa moolka ama hadaf ama waxaan ku siinaa jiho. jihadaas waa inaad aadid adoo raacaysid calaamadaha ayaan dhihi karnaa. 5taas qaybood marka u kala qaadatid micnaha qofka ardayga oo 5taas qaybood la siiyay min 15 daqiiqo la siiyay tusaale ahaan waa inuu isku dayaa inuu faa'iido ka keenaa. micnaha haddii ay ku adag tahay 15 daqiiqo oo 4 meel ay ku adag tahay dabcan hoos ayaa loogu dhigaa oo 3 meelood ayaa loogu dhigaa. haddii ku adag tahay 2 meelood micnaha inuu jiro qaab ama jiho ama cashir aad ku baranaysid. marka haddii 4 aad usoo baratid ama 3 ku noqdo ama 2 ku noqdo oo aad midka aad adiga tusaale ahaan oo aad soo qaadatid rondeel aan ka soo qaado oo marka aad dhameysid oo dhaaleylehe way ugu haboon tahay waxaa waaye meel fiican ayaan rondeelka kalsooniyaan ku qabo markaa dhahdid dabcan inaad ka gudubtid midka xigo oo saas u socotid. sababta ay tahay waa ay badan yihiin qeybaha laga rabo qofka inuu sameeyo imtixaankana kugu imaanayo oo laga kontroolayo qaabka rondeelka aad maraysid, qaabka aad isgoosiyada u goynaysid, qaab dadka ugu istaagaysid oo khida trafikanta laha qaabka ugu istaagaysid. kulli waxaa loo baahan yahay in aad ogtahay caqabada ama ninka wuxuu ka kontroolayo meel walba aad maraysid ama imtixaanka qofka qaadayo inaad ogtahay wax walba oo ka kontroolayo. marka sidaas darteeda qofka iyo macalinka ayay ku xiran tahay qaab noocee ayay u wada shaqeynayaan, qaab noocee ayay iskugu dayayaan in ay u wada shaqeeyaan. waana muhiim inaad hagi kartid macalinkaaga haddii uu asiga qorshe wadanin inaad haddii adiga arday tahay sababta ay tahay adiga ayaa bixinaysid qarashka, adiga baahidaada dabcan baahidaada inaad u turjumi kartid, aad u sheegi kartid, aad dhihi kartid saaxiibo waxaan u baahanahay cashirkayga maanta inaan ku barto 3 waxyaabood oo ah inaan xooga saaro oo aan ka soo baxo. dabcan waxaa laga yaabaa 3 waxyaabood ama 4 waxyaabood in aad 2 cashir ama 3 cashir ay kaaga baxaan oo aad ku baratid 3 shay micnaha ama 4 shay aad ku baratid micnaha qaabka saxan loo baahan yahay. micnaha rondeelka kaliya iska gal ma ahan, midig markii la aadayo qaab ayaa loo soo socdaa oo balaaseerin ama isku soo aadin ama ishabeen ayaa jirto. haddii toos aadaysid meel isku soo aadinayo jirto, fareejada qaab loo tuurtaa jirto markii laga baxayo, markii la soo galayo, bidix markii loo leexanayo waxaa jirto waxa la dhahayo doodabinkan oo micnaha geeskaaga inaad fiirisid intaadan rondeelka aadan ka bixin haddii aad bidix u leexanaysid. waxaasoo dhan waxaa lagaga baahan yahay macalinkaaga inuu qeyb kuu tusi karo kuna hagi karo ilaa aad gaartid heer biseel micnaha inaad isku filan tahay oo wadi kartid, kalsooni ku qabtid, isku qabtid gaariga marshe haddii ay noqoto, haddii ay noqoto calaamadihii, haddii ay noqoto meelihii istaag inaad istaagtid lagaaga baahnahay si nidaam ah u istaagaysid, haddii ay noqoto inaad dadka ka istaagtid. kulli waxaa la rabaa qofka ardayga markuu kama dambeys oo imtixaanka galayo inuu kalsooni isku qabo. allailehe waan ogahay sida aan samaafaraha loo istaago
qaybka uu istaagayo, qaabka ambalaneerinkii uu soo sameynayo, kulli inuu calaashaan isku wada dayi karo midka ay noqoto. marka sidaan idiin soo wada sheegay kulli macnaha imtixaanka wax lagu controlayo waa inta wadabo aan idiin soo sheegay oo haddaan iigu celiyo mar kale. imtixaanka waa laga controlaa elsa uu sameynaysid, samaafarayaasha qaabka u isticmaalaysid, fleet inaad noqotid adoona macnaha mararka qaarkood waxaa isku dayi kartaa samaafaraha hadduu xiran yahay si deganaansho inaad ku imaadid oo u istaagtid si raaxa leh. qofka indhaha hadduu isku hayo inaad istaagtay in kale inuu shak ku jiroba mararka qaarkood waa loo baahan yahay. marka muhiimadda waxa ay tahay in aad u baratid si nidaam ah oo isku leh oo aad og tahay highwayga qaabkee loo fuulaa, qaabkee looga degaa, waxay u baahan tahay baasida. marka haddaan idiin soo wada koobo kulli kama dambeystii waxaan kusoo gabagabeynaa cashirkeena maanta. waxaa jira qofka wax uu u baahan yahay inuu og yahay. maxaa waaye waxaas? okay, waxa ay tahay macnaha imtixaanka marka uu ogolaayo inuu og yahay waxa sababta imtixaanka u galayo iyo wixii imtixaanka lagu qaadayo. okay, maxaa lagaga qaadayo? hadda su'aal isweydiino. dabcan waxaa lagaga qaadaa imtixaanka inaad baabuurka xakamee karto waa muhiim, oo aad og tahay marsho ahaan dhan walbo geedaha meelay kaaga yaalaan, wax walbo hawadii wax walba og tahay. labo waa inuu qofka moolka loo diro ama jihada loo diro oo aadi karo. macnaha jiha lagu siinaa lagu dhahaa centrumka waa inaad adiga aadid. haddaa qaladidna dabcan moolkaaga ama hadafka lagu siiyey waa qaladay. waa inaad fariijooyinka si nidaam ah u isticmaali kartid. waa in aad dadka ka istaagi kartid haddii meelaha dadka maraan ee marooyin aad ka istaagi kartid. waa inaad u baahan tahay qofka markuu imtixaanka galayo kalsooni buuxo 100% inuu isku qabo. marka sidaas darteed waxaan idin leeyahay isku day macalinkaaga in wada shaqeyn iyo dhex marto. isku day macalinkaaga inuu hadaf kula imaado cashirka intaadan dhaqaaqin waxa adiga aad soo qaban lahayd aad og tahay, ama maanta cashirkaaga aad ku baranaysid aad og tahay. markaad cashirkaaga soo baratid oo maanta aad soo qaadatid oo aad gurigaaga kasoo noqotid waxa aad soo fahantay, waxa kaa qaldamay, waxa u baahantay inaad saxdid, inaad ka fikirtid si cashirka dambe lagugu celiyo kii hore oo shalay aad uga fiicnatay heerkii aad shalay lagu soo tusiyay. ilaa shalay maanta oo macalinku ku tusiyay berito waxaa loo baahan yahay inaad heer ka fiican aad ka joogtid cashirkii lamid oo kula mid ah lagugu celiyo. haddii lagugu celiyo tusaale ahaan inaad isweydii kartid maxaa u baahan tahay oo aad ku fikirtid macalinkaaga maanta hadhowto cashir ayaan leeyahay. markaad dhahdid okay waditaan ayaan leeyahay, okay macalinka ii imaanayo, waa inaad ku fikirtid maanta cashirka maxaan macalinka aniga u bandhigi karaa oo aan rabaa inaan xooga saaro si aan meeshaas ugu fiicnaado. tusaale ahaan hadday noqoto in baabuurka xakamaysid centerka meelay baabuur adi jaamka ay ku badan yihiin. haddaa ka cabsanaysid camal inaad isku dayda dhahda maanta waxaa rabaa meel ama waqti ay baabuurta badan yihiin inaan isku dayo inaan stresski iyo wixii iga bixi karo aan baabuurka xakamee karo. marka sidaas darteed waxaan idin leeyahay waa hubaal in aad natiijo fiican ka keeni doontid haddii aad muujisid dadaal fiican, waqti aad gelisid, qorshe aad ku socotid. kama dambeys waxaa ku gaaraysaa guusha ama hadafka aad leedahay. maxaa yeelay haddii aad rabtid inaad baratid wadada gaariga macnaha wax ku daba soconayo cimrigaaga ma ahan ee wax u baahan waqti yar oo kooban waayo. marka waqtiga yar oo kooban dabcan waa kaga faa'iideysan kartaa adiga, xoog waa saari kartaa, waqti badan waa geli kartaa. maxaa yeelay adoo muhiim ku yahay, adiga u baahan, noloshaada u baahan, waxyaabo badan ayaa kaaga xayirnaa karo. haddii ay noqoto shaqo, haddii ay kale wax kale ay noqoto, hadba waxay ku xiran tahay meesha aad joogtid, baahida aad u qabtid iyo xirfadda aad leedahay. waa salaaman tihiin, la socod wanaagsan cashirkeena xiga. nabadgelyo.